kulanti wacan wanaagsan daawadeel kusoo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka qodobada aan kuga helna waxaa kamid noqon doona beesha ceer ee habar gidir oo markaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud eedeymo waaweyn u jeesay kuna eedeysay inuu dana gaar ka lahaa dilkii lagu fuliyay wiilkii beeshaas ka soo jeeday ee ciidii dawaan maxkamaddu ay qisaasay kadib markii lagu helay inuu ka dambeeyay dilkii Allah u naxariistay wasiirkii howlaha guud Cabbaas Sheekh Siraaji waan idin soo gudbinaa beesha ceer ee madaxweynaha beeshiisa markaasi waceesla oo markaasi qoorta iskula jira eedeymaha loo jeedinayo beesha madaxweynaha ka soo jeedo ayaan soo gudbin doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona maxkamadda ciidamada qalabkiisa ayaa dil toogasho ku firsay laba sarkaal oo ka tirsanaa ururka al-shabaab horay magaalada muqdisho dilal ugu fuliyay dad shacabana ay hore u dileen waan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeyte Cusmaan ayaa lacago malaayiin markaasi abaalmarin ahaan u siiyay sarkaal halyey oo markaasi fuliyay dilka laba hor joogay oo ka tirsanaa ururka al-shabaab waan idin soo gudbin doonaa lacagta caddeeda iyo markaasi ciidamadii macuusleyda oo ku dhiiranaysa in ay madaxa ka soo goyaan ururka al-shabaab qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalkan waxay si cajiiba mar kale uga hadashay dagaalka al-shabaab lagula jiro qorshe waxa ay soo saartay oo lagu yareynayo lacagaha markaasi la siinayo haddaba lambara ayay soo bandhigtay adigu ma ka mid tahay dadka wacaya lambaradaasi waan idin soo gudbin doonaa qodobadaas aan ku faahfaahin doonaa warar kalaama caalamka diblomaasiyadda haddii aad noqoto subscribe noo sarkan balkalkana furo mana sii shargareeya saaxiibada markasta joogaan idinkoo kumantiga like noo reebaya aad baad u mahadsantihiin aanu ku bilaawno odayaasha beesha ceer uu ka soo jeedo dable aydiid oo sabtidii la toogtay xukunka qisaasta ahaa dilkii wasiir Cabbaas Siraaji ayaa ka hadlay sida toogashada ku timid kadib 5 sano oo markaasi la sugayay odayaashan oo shir jira ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu si gardarro ah u dilay marxuumka sida ay hadal ku dhigeen xasan sheekh maxamuud ayaa si kas ah oo gardarro ah u dilay wiilkaas iyadoo madaxweynihii hore ee farmaajo uu ku dhiiran waayay inuu saxiixo waxaana intaan kiiskan ku jirnay bay yiraahdeen nooga baxay qarash aad u badan oo magtii ka badan ayaa lagu yiri shirka jiraayad ee odayaasha beesha ceer ee markaas ay muqdisho ku yeesheen ay arrimahaas uga hadlayeen sidoo kale beesha ayaa sheegtay in sababta madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu saxiixay dilka ay tahay dana uga xiran maamul goboleedka koonfur galbeed oo ka soo jeeday Cabbaas Siraaji sida ay wararku dhigayaan dilka wuxuu saxiixay xasan sheekh maxamuud isagoo dana gaar ah kale koonfur galbeed mana uusan baarin kiiskan waxaana fursad mudan bay yiraahdeen in madaxweynihii hore ee farmaajo uu iska dhaafay inuu saxiixo dilka maadaama uu arkay inuusan sharci ahayn ayaa mar kale lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay odayaasha beesha ceer shirka jaarisoo kale waxaa lagu soo bandhigay qodobbo ay beesha sheegtay inay markaasi caddeyn u tahay in kiiska dilka wasiir Cabbaas Siraaji uu ahaa mid u dhacay qaab kama ah waxayna qodobada ay ku sheegeen kow habeenkii uu wasiirka dhimanayay wuxuu gacantiisa ku watay gaari aan ahayn gaarigii markaasi lagu yaqiinay oo ahaa gaari nooca raaxada ah isagoo markaasi ku socday si xawaare ah wuxuuna ka daba yimid gaari uu watay hanti dhowraha markaasi guud ee qaranka ee xilligaasi waxaa soo kala dhex galay laba gaari oo kala shakiya waxaana taasi keentay in rasaas dhex martay labada baabuura mid ka mid ah ilaalada wasiirka ayaa wuxuu maxkamadda horteeda markaasi ka sheegay in dhowr jeer ay wasiirku ay ku yiraahdeen gaari tartiib u wad waana ka shakinay buu yiri gaarigii markaasi naga horreeyay ma jirin aqoon hore iyo markaasi dagaal ka dhaxeeyay ciidad iyo wasiir Cabbaas xeelalintu waxa ay saacad maxkamad ugu hor sheegtay inuu kiiskaasi yahay kiis kama markii baaris markaasi la sameeyay kadib ayaa war-saxaafadoodkooda markaas ay ku sheegeen beesha odayaasha ceer ee markaasi habargeed ka tirsan oo eedeymaha kul u jeeday madaxweynaha beesha uu ka soo jeedaa ee markaasi waceesla iyo madaxweynaha ku dhiisaba ay ku eedeeyay inuu markaasi dana gaar ah ka lahaa dilka ciidiida markaana haddii aan eegno maxkamadda ciidamada qalabkiisa ayaa waxa ay saaka xukun dil toogasho ah ku firisay laba xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab waa soo hore xukunka dilka ay ugu riday maxkamaddu labada nin la toogtay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray Shucayb Cabdullaahi Maxamed iyo Sacad Cabdi Jabaar Cumar kuwaas oo lagu helay kamid ahaanshaha dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale waxay maxkamaddu shaacisay inay ku lug lahaayeen ilo qorsheysan oo siyaabo kala duwan ugu kala dhacay magaalooyinka muqdisho iyo gobolada dalka maxkamadda sidoo kale waxay sheegtay in Shucayb iyo Sacad oo magacyadoodu afkarashadu yahay Axmed iyo Qoono ay al-shabaab ka tirsanaayeen
ilaa 2014 iyagoo markaasi la soo shaqeynayay horjooga ilka cas oo isna horay loogu toogtay magaalada muqdisho waa macallinkii dilaaga ahaa fagaaraha lagu toogtay labadan ruux ayaa waxaa ku sugnaa saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabkiisa iyo ciidamada ammaanka oo xukunka dilka markaasi ku fuliyay raggaasi inta badan maxkamadda ciidamada ayaa dil toogasho ku fulisay xubno al-shabaab ee soo galay gacanta dowladda oo haatanba kordhisay dagaalka ka dhanka ururka asagasa dowladda ayaa maalmihii dambe kordhisay fulinta dilalka toogashada ay hore markaas u riday maxkamadda ciidamada waxaana muddada uu joogay madaxweyne xasan maxamuud la toogtay ilaa 4 qof oo mid yahay askar markaasi kuwaasoo dilal ka geystay magaalada muqdisho waxaana ugu dambeeyay dilka lagu fuliyay ciidid oo hore markaas u dilay wasiir Cabbaas Siraaji qaybtii dhexe janalkeena ayaa daawanaysan saaxiibil haddii aad nagu soo subscribe noo saar kambalada furo una sii share saaxiibil ma kasta jooga idinku commentiga like inoo reebay aad baad u mahadsantiin markaan gobolkan gudoomiyaha gobolkaasi Cali Jeeyto Cusmaan ayaa fagaare ku taala degmada Maxaas u bixiyay lacag uu u balan qaaday ninkii soo dilaa qof shabaab kadib markii loo keenay madaxa 2 xubnood oo al-shabaab ka tirsanaa Cali Jeeyto ayaa $10,000 Mareykanka ku wareejiyay askar ka tirsan guutada shanaad ee qaybta 27aad ee ciidamada xoogga dalka ragga lacagtan la siiyay ayaa shalay xubnaha al-shabaabka ku dilay deegaanka Moqori oo howlgalo markaas qorsheysan ka fuliyeen gudoomiyaha ayaa lacagtaas meel fagaaraha ku siiyay labadii askari ee gacantooda markaas ku toogtay xubnihii shabaabka ahaa askari kasta siiyay ama qaatay lacag $5,000 Mareykanka waana balantii uu qaaday gudoomiyaha Cali Jeeyto Cusmaan oo ku sugan deegaanka Yasoomana askarigu u hadlay raggii abaalmarinta la siiyay qof walba oo wanaag ka shaqeeya waxa uu leeyahay abaalmarin iyo dalacsin qofkii xumaato ka shaqeeyana wuxuu leeyahay ciqaab marka askartu fulisay oo dalka ay ku soo dilaan nimanka cadawga ee dhiiga islaamka baneysay waa u mahadcelinayaa waana mudan yihiin buu yiri abaalmarinta maadaama ay soo qabteen shaqo wanaagsan ayuu yiri gudoomiye Cali Jeeyto askari u hadlay raggii abaalmarinta la gudoonsiiyay ayaa fariin u diray xoolo dhaqatada ay baadda ka qaataan al-shabaab isagoo ku dhiirigeliyay inay shabaabka isagawaad ka qaataan ay markaas ay soo dilaan si loo siiyo abaalmarin ka badan xoolihii ay markaas dhaqanayeen waa talaabo aad u mudan oo dadka shacabka Soomaaliyeedna ku dhiiranayaan markaas la iska iyo markaas laga hortago weerarada iyo markaas isagawaadka al-shabaab ee dadka shacabka ay ka qaadanayaan qaybtii ugu dambeeyay ayaa isa soo gaanay daawadayaal markaan hadaan eegno dowladda Soomaaliya ayaa amro cusub ka soo saartay dagaalka dhinaca dhaqaalaha ee ka dhanka ururka al-shabaab si looga hortago dadka aruuriya baadda ay al-shabaab markaas ka qaato ganacsiga shirjaraad oo si wajir ah u qabteen wasiirka maaliyadda kan amniga iyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta al-cadaala ayaa markaas lagu shaaciyay dagaalka cusub iyo fariin loo diray dadka uu ku saabsan qaabka looga hortagayo al-shabaab qoraalka xukuumadda oo markaas akhriyay wasiir ku-xigeenka warfaafinta ayaa u qornaa sidan dowladda waxa ay markii ay aragtay in lacagaha baadda ay al-shabaab ay ka qaadaan ganacsiyada Soomaaliyeed ay u adeegsanayeen qaraxyada oo ay markaas ku beegsanayaan goobaha dadweynaha dilalka qorsheysan weerarada tooska oo ay ku hayaan bulshada Soomaaliyeed markii aragtay dowladda waajibka ka saaran ilaalinta hantida sharafka iyo ammaanka muwaadiniinta Soomaaliyeed iyadoo dardargelinaysa dagaalka lagu ciribtirayo al-shabaab waxay ku dhawaaqaysaa habka lagula dagaalamayo lacagaha ay ka qaadaan dadka shacabka waxaana ugu waaweyn qodobadaasi kow in dadka Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan si dowladdu ay u heli lahayd dadka al-shabaab u qaabilsan qaadida lacagta baadda ay ka qaadaan ganacsiga Soomaaliyeed isla markaana ay dowladda ay kala soo xiriiraan lambarada kala eber 6 ama eber 6 waa labada lambar ee markaasi dowladdu ay shaacisay in lagala soo xiriiri karo oo ay markaas ay ka wixi karaan dadka shacabka talaabadan waxa ay qayb ka tahay dagaalka maaliyadeed ee ka dhanka al-shabaab oo dowladda kula jirto isla markaana xogta ay shacabka dowladda ay la wadaagaan ay muhiim u tahay in la weeqo awoodda al-shabaab lana yareeyo dilalka qorsheysan iyo qaraxyada markaasi ay ka geysanayaan gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho guud ahaan wararkii waaweyn Soomaaliya caalamka kala socoteen janalkeena daawadayaal waa naga inta hilmaamna subscribe-ka taraan kambalka furtaan oo si sheekaysan saxbiil markasta joogan aad baad u mahadsantiin